ninbaa waxaa la yidhi hadda ka hor wuxuu u yimid ibnu siriin markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku riyooday aniga oo ka cabaayo weel ama aashuun laba madax leh mid ka mid ah madaxyadana waa biyihiisu waa dhanaan oo waa cusbo oo waa milix midna waa macaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halka aad iga daawanayso waa channelka youtube-ka aan ku leeyahay ee macalin muuse official channel. aniguna waa macalin muuse. haddii ay tahay markii kugu horreysay muuqaalkan oo uu ku soo gaaro waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe-ta noo saarto si uu ku soo gaaraa muuqaaladeena gambalelka aad furtaa. mar kale waxaan ku leeyahay ciidakum mubaarak. meel walbo aad iga daawanaysaan si walbo aad iga daawanaysaan ciid wanaagsan. maanta waa maalin kale ka duwan maalmihii hore. barnaamijkayga maanta waxaan jeclahay in aan ku soo qaato waan ku soo qaadanayaa haddii allah subxaanahu wa tacaala uu ina garadsiiyo waxyaabaha qaarkood sida cajiibka ah ee dadkii inaga horreeyey khibrad iyo experience oo ay u lahaayeen fasiraadda riyooyinka. dhowr qisaan soo qaadanayaa iyo sidii ay uga falceliyeen dadkii loola yimid su'aalahaas ee loo keenay. waa cajiib. waxaa xusid mudan aayad qur'aan ah oo ilaahay uu ku dhahayo yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ti alxikmata faqad uutiya khayran kathiira. ilaahay ciduu doonuu siinayaa xikmad. ilaahay qofkuu xikmad u dhiibaa oo u siiyaane khayr fara badan u siiyey. dad waxaa iska jiro markaad markiiba su'aal sidaas aad u weydiiso haddii ay tahay su'aashaasi mid ku tacalluqdo riyo ama si kale ha ahaatee markiiba ilaahay uu waafajinayo. waryaan idinku daalinin qaar ka mid ahaan soo qaadanayaa si idinkuna ay idinkugu noqoto tacbiir aad u kaasataan riyooyinkiina si aad u fasirataan. waxaa dhacday hadda ka hor maxamed ibnu siriin waa wada taqaanaan. maxamed ibnu siriin wuxuu ahaa nin aad tafsiirka riyooyinka aad u yaqaano, ilaahay baray. wuxuu leeyahay annagoo 3 qofoodaa maalin maalmaha ka mid a baxnay safar ayaan u baxnay. mid naga mid ahaas seexday. markaasaa waxaan aragnay ayuu leeyahay iftiin oo sidii faynuus oo kale ah oo markaasi ka soo baxayo sankiisa. ninkii isaga ahaa wuu ka soo kacay hurdada isagoo oo wejigiisa masaxayo. hadda u fiirso, isagoo oo wejigiisa masaxayo hurdadii ka soo kacay. markiiba wuxuu yidhi, qisadan waxay dhacaysaa iyadoo lasoo wada jeedo. 3 qofay ahaayeen. marka mid ka mid ahaa seexday. labadii nin kale ee soo jeeday oo maxamed ibnu siriin uu ku jiray ayaa waxay arkeen ninkan hurdo sankiisu uu ka soo baxayo iftiin sidii aad moodo nal oo kale. ninkii markuu soo kacayna wejigiisii oo masaxayo gacanta uu mariyey. wuxuu yidhi waxaan arkay uu yidhi godkaan aynu ku jirno ayaa waxaan ku arkay uu yidhi kanzi ama keed. wuxuu leeyahay maxamed ibnu siriin waan galnay, godkii ayaan galnay. waxaan ka helnay waxyaaba harharaa ah oo kanzi ah ama keed ah oo dadkii hore ee ka dhinteena helnay. ayadaas si toos ah u furmatay, macnaha tafsiir iyo tacbiir maba loo raadininba. waxay caddaynaysaa marka dad waxaa jiro mar allaala markii ay riyoodaan riyadoodu markiiba ay furmayso, xataa aan u baahnayn in shiikh loo raadiyo ama tacbiir ama tafsiir loo raadiyo. waxaa dhacdada ka hor gabar ayaa waxay u timid nin riyooyinka fasiro. markaasay waxay ku tiri waxaan ku riyooday aniga oo ninkayga ama zawjkayga uu ii siinayo ii dhiibayo narjis. narjis waxaa la yidhahdaa sawirkiisa inta idiin soo dhigi doonaa. waa geed ka mid ah geedaha ama ubaxyada ka mid ah ama fiyoora ka mid ah
كل أف صومالي موكو أقانو لكن سوي كيسا هالكان إدين صور إيجي دونا نرجس أيو أنيجي إسيي أو إيدي بي gabadha aniga uu ila qabo oo xaaskiisa labaad ahne wuxuu siiyey wax la yiraahdo aasa isagana waa geed ka mid ah geedaha ama ubax ama fiyorooyinka inta sawirradooda idin wadaagi doonaa wuxuu ku yiri marka wuxuu ugu fasiray ninkaaga adiga wuu ku furayaa kow iyadana waa uu ceshanayaa xaaska kale wuu heesanayaa ma maqlin miya uu yiri shaacirka inuu leeyahay ليس للنرجس عهد إنما العهد للأس نرجس كبلان عهد منهن لكن وحب بلانتي عهد قاله ولاسكا أما آلاسكا لبضر بان وحي يهين أف صومالي وما هايو لكن وإذن لو داقي دونا الصورة ضوضة أيان إذن لو داقي دونا نمبا هاد كوهر وحو كوير ننري ويك فسيرو وحان كور رياضي أنيغو أو إيبينا يبر كوني إيبينا يو قمدي bur baan iibinayay burka waxaan ku soo iibiyay ayuu yiri qamadi markaasuu wuxuu yiri niyo horeeyada tafsiirkeeda waxa waaye adiga quraanka ayaad waxaad ku bedelatay shicir iyo gabay quraanka ayuu ilaahay ku baray oo waxa tahay nin ilaahay quraanka uu baray markaas quraankii waxaad kaga tagtay oo aad ku bedelatay shicir iyo gabay iyo waxaan loo joogin qisooyinka waxa ka mid ah iyo dhacdooyinka cajiibka ah oo ay fasireen culumadii inaga horeysa sida ibn Sirin iyo Nablus iyo dad badan oo mucabbiriin ah ninba waxa la yiraahdo ka hor wuxuu u yimid ibn Sirin markaasuu wuxuu ku yiri waxaan ku riyooday aniga oo ka cabayo weel ama aashuun laba madax leh mid ka mid ah madaxyadana waa biyihiisu waa dhanaan oo waa cusbo oo waa milix midna waa macaan markaasuu wuxuu yiri adigu waxaad qabtaa haweeney ayaad qabtaa walaasheeda ayaana u dibbartaa bal u fiirso adigu waxaad qabtaa haweeney oo waxaad leedahay xaas laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay gabadha dumaashida ah ee xaaskaaga la dhalatay ayaad u daba martaa oo aad ku daydaa markaasuu ninkii wuxuu yiri ashhadu annaka sadaqt wallahi run baad sheegtay yiri يعني السيتات أفسرت معناها روفيرس رياضنا محي إيه سؤال شيدو وحي إيه ويل أو لبا فرلة أما لبا أفله أنبياء كعباية منا وحو أها معان منا وحو أها قرار وقبر إيه ولا شيء ضواي متك معان وحلاشة متك قرار كأهنه ومدن دماشيدي ساعة إيه حارانتك أهواي وأقصى جيبوا طيب وحكمت ده sidoo kale fiiri haween gabar kala u timid ibn Sirin markaasay waxay ku tiri waxaan ku riyooday ay tiri aniga oo qolkeyga jiifka oo ku jiro waxaan haystay laba dhagax oo dheeman ah labada dhagax mid ayaa midka kale ka weyn mid ayaa weynaa midka kale xoogaa midka weyn ayuu ka yaraa waxay tiri marka walaashii aniga ila dhalatay ayaa waxa ay i weydiisatay inaan mid ka mid ah aan siiyo markaasaan waxaan siiyey kii yara ayaan siiyey leedahay dhagaxii yara ayaan siiyey oo kii weynaa anigu waan ka reebtay markaasuu wuxuu ku macneeyay oo uu yiri tani waa haweeney walaasha waxa uu yiri ama qofka riyadan arkay wuxuu yiri waa gabar waxay baratay quraanka laba suurad ayay ka baratay quraanka mid dheer iyo mid gaaban midii gaaban ayaad bartay gabadhii walaasha ahayd tii dheereedna ma aadan barin markaas markii waxay la soo booday wallahi run baad sheegtay waxaan bartay ee tiri suuradaha baqara iyo al-imran aan bartay dhahday walaashay waxay i weydiisatay inaan barto markaas waxaan baray dhahday al-imran baray dhahday al-imra ayaan baray arkaysa يعني معجزوينك اي عجائبته اي ليهين تفسيرك احلامك ayaan ku sheegaya kuwan waxay ahaayeen marka qaar kamid ah riyooyinka oo ay fasireen Maxamed ibn Sirin iyo Nablus iyo dadkii culimada ah ee riyooyinka fasir jiray halkan waxaan ku hayaa buug dhan ama kitaab dhan oo buuxo oo weyn oo haddii aad akhrisato ama aad carabiga aad garanayso
aad ula fajacayso aad ula yaabayso oo ku saabsan sidii riyooyinka hore ay u fasiri jireen iyo sidii ilaahay uu u waafajin jiray waxay ahaayeen si cajiib ah ayay ahaayeen insha allahu tacaala mawduucanna si aad idinkana waxaan uga golleeyahay waxay tahay aan u soo saaray ama aan u keenayo ama aan uga hadlaayo si aad uga faa'iidaysataan idinka lacalla haddii aad ku riyootaan beri ka maalin riya noocan oo kale ah si aad u ogaataan tafsiirkeeda waxa uu yahay dhowr jeerna waa ka soo hadlay ma ahan markii ugu horreysay keliya waxaa ii dhiman inaan idiin mahad celiyo daawashada muuqaalkan aad daawateen anigoo soo gaabiyey warka iyo muuqaalkaba intaan muuqaalkan muuqaalka xigo aan ku kulmeyno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.